kana shirweynahan iyo golaha halka jooga waxaan la wadaagi doonaa muddadii 5 sano ee aan xilka haynay waxyaabihii noo qabsoomay ayaan halkan idinka sheegi doonaa marka waxaan idin rajaynayaa inaad runtii soo ila jeedisaan dhagihiina annagu ka gudiyahan waxaan la doortay muddo 3 sano laakiin asbaaba jiray oo doorashooyinka oo lagu soo food yeeshay waxay qaadatay maanta inaan ku fadhino kursiga muddo 5 sano marka 2 sano ayaan muddo dhaafahay guddidu waxay si buuxda uga qayb qaadatay 3 diiwaangelin doorasho oo dalka ka dhacday ayay guddigu si buuxda uga qayb qaadatay guddidu waxa ay sidoo kale ka qayb qaadatay shir la iskugu yimi hotel ambassador oo ay iskugu yimaadeen beelaha garxajiis shirkaasoo runtii guddida guud waxay ka qayb qaadatay shir ka dhacay hotel ambassador oo ay iskugu yimaadeen beelaha garxajiis kaasoo culays lagaga qaadayay beesha Sacad Yunis oo magbadan ku soo hooyatay ayay ardaa kastoo kamid ah beesha garxajiis wuxuu ka duqaaday magdhan 12 halaad guddida guud waxay bixisay 12 halaad ee ku soo beegmay ardaaga baaduqsi kaasoo ka dhacay hotel ambassador guddida guud waxay ka doorasho u samaysay 4 rukun ay ka kooban tahay beesha baaduqsi taasoo ay kala qortay nidaam doorasho guddida guud waxay ka qayb qaadatay doorashadii ugu dambeysay ee madaxweynaha iyo xusbiyada taasoo si cad u taageertay beeshuna u taageertay madaxweynaha maanta jooga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo xusbiga wadani kuna dhistay taasoo ilaahayna ka dhigay waxa weeye madaxweynaha maanta haddaba anaga caqabadihiina haystay muddadii aan joognay waxyaabihii kamid ah waxa kamid ahaa inayna runtii beeshu ay mucaarad ahayd taasoo runtii ugu weyneed waxaan soo jeedinayaa oo guddi ahaan aan soo jeedinaynaa in magta la mideeyo guddi ahaan waan soo jeedinaynaa maadaama ana waqti laga dhamaaday sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in ardaagu yeesho guri guud oo ardaaga bahood leeyahay oo ka dhaxeeya taana guddiga guud baa soo jeedinaysa in midnimada iyo wax isku ahaanshaha iyo wax wada lahaanshaha aad iyo aad loogu dadaalo waxaan doonayaa in masalan nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay uu la ballamay wacdiga la galay wuxuu kaga sii tegay walaalkii haaruun markaa uu usii dardaarmay qoomkii reer bani israa'iil waa kii ninkii u sameeyey sanamkii sac ahaa waxa weeyaan uu ka dhex bixi kari waayey haddana inuu reerkaasi waxyaabaha noocaas oo kale inuu sii kala jajabiyo reer bani israa'iil oo wuxuu yihi markay waxaan sameeyey baad kaga tegtaa ma baad sidaa samaysid waxaan ka cabsaday buu yihi inaad tidhaaho farabta bayna bani israa'iil reer bani israa'iil baad kala kaxaysa xataa ilaa xadka ayaa isku duubnaanta iyo midnimada lagu ilaalinayaa oo lagu maaragtay hagaajinaya walaalayaal waxa weeye waxay la tahay caawa shirkeena intiisa badan kolle waa laga hadli doonaa laakiin aniga dardaarankaygu waxa weeye reerka baha la yidhaaho oo intaasoo sannadood oo siyaasiyan iyo waxyaabo badan oo waddanka laga qabsaday aan waxba ka qabsan oo takhalluf badan uu ku dhacay waxa ugu wacnaa takhallufka iyo dib u dhaca qaybsanaanta had iyo goorale isbeerbaadhaanta loo isticmaalayay ee mar walba wax lagu soo dhex tuurayay ee mar walba cid lagu dhex samaynayay marka waxaan aad idinku dardaarayaa in midnimada aad iyo aad loogu dadaalo waxaan halkan marka u horeysa waxaan salaamayaa dhammaan marti sharaftan naga soo ajiibtay shirweynihii aan u qabanay aad baan idinka mahad celinaynaa dhammaantiin cuqaasha waxgaradka siyaasiyiinta dhammaan taytalada nin walba taytalku sito waxaan leeyahay waan idin mahadnaqaynaa haddii kulley horta waxa weeyaan guddidiiga horeysa baa dhamaysay hadalka inta aniga iga khusaysta ayuun baan ana ka hadli doonaa horta waxa weeyaan ilaahay baa mahadle inaanu soo galnay anagoo guddideedii oo 13 xubnood oo sidii ay xilka ku hayeen iyagoon habeenna maradooda mooyaane maankooda istaarin
aanu caawana wareejinayno sidiina aanu isu jecelnahay oo waa ilaahay mahadii annagoo guddiina aanu soo galnay halkan aanu kana bixi doono annaga oo guddidii hore ah waanu soo dhaweynaynaa guddida cusub ee halkan lagu dooranayna iyadana waanu soo dhaweynaynaa marka ugu horeysa waxaan leeyahay Bahad Duqsi dardaaran badan iyo arrimo badan baa halkan laga siiyey oo lagaga hadlay guddida soo socota waxyaabaha ay u yaala ee ay qaban doonaan ayay ka mid tahay mideynta Bahad Duqsi inay shirweyne qabtaan in ay wixii dadka magaranaysa hadhowta cidii u sharxan ay shaaciyaan in lala shaqeeyo anaguna garabkoodaanu nahay weliba waxaanu nahay mustabeedkoodaanu noqon doonaa waayo wax badan oo aan waayo aragnimo u leenahay ayaa jira oo maaragtay aanan laga yaabo inaan nagala maarminba taana waxaan uga ballan qaadaynaa inaan guddida cusubna aanu la shaqayn doono waxa kale oo aan halkan ka cilaaminayaa in waxyaabo fara badan oo lasoo qabtay uu halkan xogaayuhu ka sheegay waan uga mahad celinayaa waxa weeyaan ilaa iyo haddii ay noqonayso magta haddii ay noqonayso shirweynayaashii haddii ay noqonayso golayaashii iyo doorashooyinkii soo qarsoomay mid walba waxaynu kala kulanayba haddii ay noqonayso beelaha qaar oo adduun lagu caawiyey sida maaragtay markii ay isku dhaceen qolada Kamashin iyo Alwaraab oo kale qolada reer Alwaraabe si wanaagsan baa loo caawiyey qolada Bisad si wanaagsan baa loo caawiyey iyagana hawlo ka yimid waxyaabo badan oo waxa jira ay intaaba guddidu ay u gaar ahayd oo ay qabanaysay baa jirta oo aan cidna ugula tegi jirin shirarka ay qabanayaan ee Bahad Duqsi u yeerayaan jeebkooda iyo dhaqaalahooda ay ahayd fikirkooda ay ahayd waxa kale oo aan halkan caawa ku soo dhaweynayaa oo aad ugu mahadnaqayaa ninka la Mujaahid Muuse Qooriye oo caawa halkan nala jooga kililkii shanaad bay nala jooga caawa yaan la yeersan kililkii shanaad caawa halkan nala jooga isagana waxaan filayaa in lagu soo dhaweyn doono insha Allah waxaa leeyahay soo dhawow ninka la soo dhaweeyo waa ninka Mujaahid waa ninka hadalka ogeydeen isaaq oo dhan iyo Soomaaliyeed ay ka wareereen ninkii yiri weeye waa marka wax weeye Mujaahid bas ka wada sheegata waxa leeyahay Mujaahid injineer Cabdikariim soo sharaf u siiyo ama u guddoonsiiyo guddidii hore guddiyadana dadka talo guddidii cusub way joogtaay tusaale u tahay waxaan u sheegaynaa cidda soo socota inay ogaato wixii dadkii hore ay ka sariigteen inayna ku dhex dhicin oo haddii ardaaga xisbiyada laga soo dhaxlo nin waliba ilaa gudoomiyaan ahaayo ardaaga Bahad Duqsi gudoomiye oo xisbi hebel baan ahay kuwaasuna BNB sheegay halka jooga gudinimo noqon mayso barnaamijkaasu gudinimada waxa weeye ardaaga horumarintiisa inay ka shaqeyso arrinta siyaasaduna waa lagu wada dhaco madax dhaqameedka oo dhan baa ku dhacay inaan la gelin faraha oo balooday dadka siyaasadda ee kolba dhinac u cararaya inta markaan ka yimaado Yuusuf Cabdi Xaafo gudoomiye baan u yeerayaa Cabdiraxmaan Chief Caaqilka oo gudoomiye ku xigeen ahaana waan u yeerayaa Chief Caaqilkii guud weeyaan bahood adiga Chief ka reer kuma kala hadlaya waxaan u yeerayaa kale xogayaha guddida dadkana aan siinayo shahaadada waa dadkii guddida uu ahaa fulinta gudoomiye ku xigeen iyo xoghaye saddexdoodan inamadii ila shaqeeyay Muxiidiin Cumar Sookac waxa Ali Hugur Sookac aduguna waa qoladii mustambeedka nagala shaqeysay hawshan guddidana shaqada wanaagsan la soo qabatay ayaa u garatay in guddida lagu yiraahdo waa mahadsantiin halkan waxaa hor yaalla xubnihii ay iska soo xuleen ardaayada Bahad Duqsi ee guddida u matalayay ama u matali doona kaasoo xilka kala wareegi doonta guddidii hore ugu horeyn haddaan ku horeeyo saddexda xubnood ee guddida u matali doona Cabdi Dheere Xuseen Cabdullaahi Buure ha istaago Axmed Diine Cilmi isna istaago Cumar Maxamed Xawaadle isna istaago saddexda xubnood waa saddexdii u matalayay guddida ardayga ee Cabdi Dheere
ee guddida guud ee ardaaga u matalaya. waxaa ku xiga ciise guddida 3 xubnood ee u matalaya. kow maxamed cumar xasan ha istaago. axmed aadan caraale ha soo istaago. cabdiraxmaan aadan ow maxamuud sheekh haaruun ha istaago, ha soo istaagaan. guddida reer bare u matalaysa 3 xubnood u matalaysa guddida baashe dheyr axmed, cawil cabdillaahi diiriye, muxiyidiin cumar jaamac. saddexdii xubnood ee cabdidheere bare iyo ciise waxaan iyagana ku xigsiin doonaa reer ismaaciil 4 xubnoodee uga qeybgelayay guddida guud ee ardaaga. kow cadnaan axmed cismaan, cadnaan miir ha soo istaago. سعيد محمد إيدان أما شافير بدو سعيد شافير. ناصر موسى يوسف. halkan qofka saddexaad waana odaya oo garanaysaan oo isaga golaha ka maqan xuseen shabeel maxamed. halkaa waxaa ku dhan 13 xubnood oo guddidii guud ee ardaaga matalaysay ee arrimaha maanta u yaalla ardaaga. kolley iyagaa doorashadooda iyo haddii bedinka leeyahay xilka la wareegistooda iyagaa qabsan doona.